su-aashan waxay leedahay waxaan iska register gareeyey kambani la yidhaahdo tennis waxayna iibiyaan daawooyinka herbolka ah waxayna igu dhaheen mar kasta oo aad qof keentid waxaad helaysaa commission heer aad gaartid inaad gurigaada iska seexato commissionkiina uu kuu soo dhaco markaan weydiiyey diinta maxay ka qabtaa waxay ii sheegeen in sheekh shibli uu arrintaa baneeyey maxaa ka jira alxamdulilah waayahan waxaa badatay fake newska wararka faalsada aa batay hadalkaasi hadal faalso oo beena wey meelaan tennis baa xalaala ku idhi ma laha bal waxaan idhi oon leeyahay haddana xaaraan wey muxaadara ku saabsan tennis iyo kuwa lamidka waxaan u mayn 2009 inay ahayd waxaan halkan ka jeediyey sharikadaha network marketingka ku shaqeeya burcadee tuugada ah waa sharikada musuq maasuq iyo boob dadka masaakiinta u samaysan wey markaad waxoogay joogtaanba shirkad baa soo baxda oo suuqa ka baxda DXN iyo JNLD iyo Furan Business iyo kuwii jiijiri awey kuwa tennis baa socotaadna leedihiin dunida waxay ka laga aqoonsan yahay inay yihiin fraud business tuuga iyo musuq maasuqa dadkiina luqadaha ingiriiska iyo carabiga yaqaana haddaad google garaysaanna qoraallo magister iyo PhD laga diyaariyey iyo kaysas maxkamada socda baa dunida meel walba ka taagan baad arkaysaan waddankanna waxaa ilaahay qadaray maalinkan habeen jeediyey subaxeedii headlaynada 35 bilyan baa lagu dhacay waddanka oo qaar loo tiirinayay wasiirkii maaliyadda ee waagaas waddanka Amos Kimunya in la dhihi jiraan u mareen xaaskiisu inay ku lug lahayd dadkii xasuustee joogay mas'aladani 4% ilaa 6% baa faa'iida inta kalena dadku way khasaaraan waxaa loo dhisaa sheeko been ah oo adiga hunguriga kaa soo rida waxaa lagaaga dhigay shirkadda yarta ah productionka ay gadaysaay inay khalqiga dunida joogo oo dhanba macmiil u noqonayaan waxaa lagu leeyahay adiga waa keliga 2 qof baad keentay tusaale ahaan 2 kugu hoos qoran labadii mid walba labuu keenay waa imis 4 mid walba labuu keenay 8 midba labuu keenay 16 midba labuu keenay midba labuu keenay 64 midba labuu keenay 128 midba labuu keenay markaasaa marka dambe shaxda waxaa lagu gaarsiin inaad adigoo iska jiifaay milyoneer noqoto ama bilyoneer noqoto intaasay shirikaduhu waddankan joogeen oo la gelayay wax milyoneer ku noqdo ma aragteen goormaad waansamaysaan midda labaad hal mid ogaada sharikad ganacsi oo production soo saaraysa waxay xayeysiiso ay meelo u samayso ma productionkeeda uu soo saarta iyo maadaday soo saarta iyo badeecadeeday xayeysiisaa soo maaha sharikadahan gala website-yadooda membership bay xayeysiinayaan memberka sida looga noqdaa la xayeysiinaya badankood haddaad tiraahdaa goodhonkiina igeeya iyo warshadiina igeeya haddaad tirahdana weligaa lagu tusi maayo warshad ka gasishadaada dawo ka ganacsanaysa oon bakhaaradeeda la aqoonin oon warshadeeda la aqoonin oo reer guura ah xaggeed ku aragteen adduunka waa burcad shaqada shaqaysata dad baa waddamo la geeyaa markay waxoogay la fuuqsado waa la kala bedelaa kii South Africa joogay Kenya la idiin keeni kii Kenya joogayna Tanzania la geyn kii Tanzaniana Kigali iyo waxaa la geyn Rwanda ma yahay Kigali ama Bujumbura iyo Burundi baa la geyn taa markay fashilanta mid saddexaad baa la samayn iyagii baa la kala wareejin oo kii Kenya joogay waxaa la geyn Pakistan iyo Asia la geyn war waxan waa sharikada musuq maasuqa markay mid waxoogay joogtaba suuqay ka baxdaa dad bay caydhaysay oo lacag ka qaadataa waxoogay markii la joogo mid kala bud soo dhahda 10 sano u dambeeyay dadkiina suuqa joogay imase shirkadood oo nooca wada suuqa soo gashay oo baxday bayinku dib taariikhdooda ugu noqda war waxan waa dhacaya boob waa musuq maasuq maxaa laga ganacsanayaa marka xubinnimada laga ganacsanaya dawada laga gadayo aadna uma gadanaysid dawo iyo ganacsi iyaguna dawo iyo ganacsi kaagama gadayaan
intaad isu sheegaysaan waa been musuq maasuqo waxba ka jiran labadiinabana waa ogtihiin aduu markaad gadanayso dawaad isticmaalayso ood u baahan tahay maaha dawo meel kuu furantood ka sii ganacsanaysana maaha maxaad lacagta u bixisay baan idhaahdaa qofka inaan xubin noqdoo member noqdoon dadkeenaan lacagta runta u bixiyey buu ku yidhahdaa muhim ma aha inay dawadan hadhow kaasii gadanto inaad ka faa'iido markaad saa u gadato ma dawaad gadatay mise xubinnimaad gadatay ma membership baad gadatay mise dawaad gadatay membership baad gadatay iyagu markay saa kaaga gadayaan ma membership bay kaa gadeen mise daway kaa gadeen dawadan qofka u baahan iyada oo kaloo ka jaban buu waddanka ka heli muxuu tan qaaliga u gadanayaa farmashi u furan oo uu kalaayantuu yahay kama hadlayno qof meel u furan tahay oo dawo meel ka soo qaatay oo sii gadaya oo dad haddaad noo keentay dilaal baan ku siinaynaa waa normal businesskii waay kani normal business ma aha gurigaaga adoo iska fadhiya taajir noqon marka lagu leeyahay macnaheedu dawadaad naga gadanaysa meel furan mayso fadhiisan maysid waay uma baahnid meel inaad fadhiisato aduu xubin noqo dadka kaa dambeeyana way kaa daba taajiriyo inay farmashi furtaan oo dawo harbala dhigaan uma baahna wey oo maxaa dhacay gurigiisa soo sarji ku taajiri muxuu ka taajiray membership buu ka taajiraya waxa runta marka laga hadla waay inta kale waa sheeko faalsa oo beena wey saa darteed business coverkiisa iyo sheekadu aqriyaya faalsa ay tahay wejiga dabaalxumada hiriquu ka bilaabay maqasho nin baa biyo galay dabaal inuu yaqaano iska dhigay markaasuu meeshii u sokeysay baraqbaraqaga siiyey daydaysa dabaal aqoonin hiriqii u sokeeyeen dhayga ahaa buu ka bilaabay dabaalxumadu hiriqii ka bilaabeenoo waxaan laguu sheegayo waa sheeko faalsa production la sameeyo oo la gadayo ma jiro been waay adigana warkaaad sheegaysa waa been iyo dadka ku keenaysa faalsa wey daawo ma gadanaysidee membership baa gadanaysa xaqiiqadu sidaa wey markaan runta isu sheegno ee qof walba aad tiraahda ilaahay ka yaab runta markaad sheegto wuxuu xubin aad noqdaan rabaa lacagtu bixi anu dawaan gatay wuxuu ku yeeriyaba markaad tani ilaahay ka yaab aakhira maxaa u samaynaysaa ilaahay haddaan ka yaabo wuxuu ku leeyahay anuu xubin aad noqdaan rabaa ee daawadu muhiimi maaha marna haddii daawada haddii lagaaba gadan waayo maxaad samayn haddaan waan sharrabay waan gaadhay buu ku leeyahay xubin baa noqday marka sidaa weeye tennis shibulaa yidhi waagii bitcoin ay soo baxday yaa waxay quwo dhaheen wadaadku wuxuu yidhi waa xalaalo dadka dhiilaaskee waa wiilkiisaa ka mida wiilkaan dhalay ilmaha ugu weyna weli secondary buu ku jiraa marka sheekada beenta soomada arkayna kol boqolo sheeko faalsaa laga sameeyo siyaasaddiiyo wadaadaduna waxay soo galeen roolkii sheekada iyo shaabadda faalsadaa laga samaynayey dadkaasi been bay sheegeen u qasdeen hadday iyagu sameeyeen haddii kalena been loo soo sheegay baanay iska hubsanin ma dhihin waa xalaale haddaba markhaati ka ahaada shirkadda nooca u shaqaynaysa anu tennis ma aqaano iyo magac la yidhi magaceeda muhim ma aha ilaahu dhagax ma la baxdo ama dhuxul ha la baxdo shaqada sidaasii xaaraan weeye marar badanna waan idhi muxaadaraadna waa ka jeediyey haddana waa idiin sheegayaa sidaasa aniga saxda ila ah wixii kale waa been layga sheegay bilahi towfiiq